wiil Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxa uu la xidhiidhay dalweynaha Hindiya. gabar Hindiya ayuu aroostay. dhacdooyin cajiib ah ayaad ku daawan doontaan barnaamijka. waxa uu dhigtay arooskii qarniga. si fiican ayuu u buuxiyay shuruudaha dhaqanka oo Hindida ee arooska. wuxuu ku soo labistay dharka dhaqanka oo Hindida, isagoo sidoo kalena jabiyay rikoor aad u weyn. sheekada jacaylka Yaxya iyo Amiisha. sidee ayay qoyska Amiisha iyo Yaxya u wada xiriireen? sidee ayay Yaxya iyo Amiisha isku fahmeen ugana dhameeyeen riyadii noloshooda ugu weynay? Yaxya oo laga soo doonay reerkiisa sida dhaqanku Hindidu qabo. su'aalahan iyo xogo kale oo muhiim ah ayaad ku daawan doontaan daawadaya. ilmaami inaad boggeena soo follow garaysid, sidoo kalena aad like garaysid muuqaalka una share garaysid asxaabtaada si aad farxadda qoyskan ula wadaagtid bulshada Soomaaliyeed. Yaxya Cabdulqaadir Maxamed oo ah wiil Soomaali ah ayaa magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya kula aqal galay gabar reer Hindiya oo lagu magacaabo Amiisha Khan. Yaxya Cabdulqaadir Maxamed waxa uu ka soo jeedaa deegaanada Puntland, gaar ahaan gobolka Mudug. waxa uu noqonayaa Soomaaligii ugu horeeyay ee la xidhiidha dadweynaha Hindiya. Yaxya ayaa ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ku baran jirtay dalka Hindiya. sanadkii 2015 ayuu ka tagay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug si uu waxbarashadiisa heerka labaad ee jaamacadda u sii wato. waxayna Amiisha isku barteen mid ka mid ah jaamacadihii uu dalkaasi ka baran jiray. Amiisha Khan waxay ka soo jeedaa qoysaska ugu taajirsan dalka Hindiya, waxayna jacayl waali ah u qaaday Yaxya Cabdulqaadir Maxamed. Yaxya ayaa waxa uu inoo xaqiijiyay in maalmihii ugu horeysay nolosha jacaylkiisa uu ku jahwareersanaa luuqadda Hindidu. waxa uu sheegay in luuqadda Hindiya ay tahay mid ka mid ah luuqadaha ugu adag ee dunidu, ayna ku ahayd caqabadda ugu weyn markii ay hasaawi jireen gabadhani. waxa uu sheegay inay qalbiga iska fahmi jireen gabadhani maadaama ay shakhsi romantic jacayl ah. arrinta cajiibka ah ayaa ah in sida dhaqanka Hindidu yahay gabadha reerkeedu ay soo doonaan wiilka, waxaana xiriir sameeyay Yaxya qoyskiisa iyo qoyska Amiisha Khan, iyadoo adduun lacageed oo gaaraya $40,000 ay Yaxya qoyskiisu kala wareegeen qoyskii Hindida ahaa. Yaxya ayaynu la xiriirnay, waxaana weydiinay diinta Islaamku inaysan qabin in ninka la soo doono ee gabadhu mehersato. waxa uu sheegay in dhaqanka Hindidu ay aaminsan yihiin dadweynaha Hindidu in cuqubo iyo halaag ay ku dhacayso reerka haddii wiilku uu soo doono gabadha Yaxya. sidoo kalena waxa uu xaqiijiyay in dhammaan ay dhiman doonaan waalidiinta gabadha dhalay, sidoo kale qoyskoodu waxaana aaminsan dhaqanka Hindida. Yaxya ayaa sheegay inuu qaatay marka hore in gabadhu ay dhaqanka ka dhex aragto ama dhaqanka Hindida ka dhex aragto guurkeeda oo ay qanacdo. sidoo kalena wuxuu sheegay in qoyska